واتهاي dadkii reer Dhuusamareebada isugu yimid wali qabrigaan joognaa bil koor bay gabadha dhimatay rabaa u naxariistay sida la sheegay walina dadku qaarkood waxa ay sheegeen in nin wadaad ah isugu yiri gabadha waa noosha sidii ayagu ay hadalka u dhigeen wali qabuurtii baan joognaa waana arrin la yaab leh in qof bil ama laba bil agteed mootana la yiri waa nooshahay dadku inta badan waa ka dhaadhici laadahay bulshada reer Dhuusamareebada oo dhan ay isugu timisay u jeedaanba qabuuraha Dhuusamareeb baan joognaa dadku intooda badan aad bay u hadal hayaan arrintan la yaab kala Dhuusamareeb dadka jooga ay halkan qaarkood isugu yimaadeen iyagoo sheegaya in qabrigan faray ku godan tahay waa sida hadalka u dhigeen dadkuna inta badan kama dhaadhacsiisna in qof bil mootana in hadana la yiraahdo waa nool yahay waa arrin la yaab leh waana arrin inta badan dadku ay isweydiinayaan oo ay sheegayaan arrintan arrin macquul ah aysan noqon karin balse waxa la sheegay dadka qaarkood maraan la hadlay in la rabo in la jabiyo qabuuraha oo la ogaado marka waa arrin inta badan dadka ay intiisa badan hadal hayaan jooga halkan Dhuusamareeb baana qabuuro kamid ah qabuuraha ku yaala magaalada dadku intooda badan waa isku yimaadeen saa u jeedaanba dad badan ayaa yimid iyagoo markaasi doonaya in arrintan ay iyagu markaasi ay ogaadaan in arrin dhab ay tahay sidoo kale arrin been abuur ay tahay dad badan baa yimid halkan anigu aan kamid ahay dadka qaarkood baabuur bay ku yimaadeen iyagoo doonaya inay ogaadaan arrintan inay xaqiijiyaan markaas raba inay iyagu arrimahan dadka ay hadal hayaan la sheegayo in qof dabcan geeriyooday mar hore la yiri waa uu nool yahay hal baaro qabrigii oo dadka qaarkood marka la sheekaysatay ay ku sheegayaan oo leeyihiin nin baa yiri wadaada gabadh baa nool marka aad bay dadku hadal hayaan waana arrin inta badan aanan la filan kareynin in maskaxda ibni aadamigu uu ka dhaadhaco marka dadku way hadal hayaan dad badan baa yimid oo haween iyo rag isugu jira iyo waliba caruur iyagoo doonaya in ay ogaadaan xaqiiqada rasmiga ah halka ka jirto dadku marka qaarkood markii dad tagaanba kuwa kala soo buuxsamaya iyagoo markaasi arrintan la yaabka ah marka la sheegayo in qof mar hore dhintay laba bil agteed ama bil ku dhawaad mootan ama geeriyooday la yiri waa uu nool yahay oo inta badan dadku ay qof walba uu isleeyahay bal arrintan inay run tahay iyo inay been tahay soo ogow qabriga tag qofka dushiisa ah qabuurtaas idin muuqata midka ugu geeska xagga ayaa ku jira qofkii la sheegay ama ay dadku ay sheegayeen in arrintaas ay la kulmeen oo nin sheekh oo baladkan degan oo imikaana reer magaciisa in ay la wadaago arrintaas isagu ay ka soo baxday balse ay dadku isleeyihiin bal arrintaas soo ogaada waa arrin la yaab leh waana inta badan laga hadalhayo deegaanka gaar ahaan Dhuusamareeb iyagoo doonaya dadku inay ogaadaan arrintan sida ay wax u jiraan iyo inay noqon karto mid dabcan wax ka jiraan marka dadku way imaanayaan qaarkood way laabanayaan haddana waa ay tagayaan marka clipkan kal hore mar hore la wadaagay haddana mid kale ayaan dabcan la wadaagay marka arrinta la yaab kale ayaan jeclaystay in dadka aan la wadaago Dhuusamareeb lagu arkay qof muddo bil ah geeriyooday mootana haddana la yiri waa nool yahay waa arrin la yaab leh aadaan u mahadsantihiin muuqaalkan share gareeya waa qabuuraha Dhuusamareeb oo arrintaas la yaab kale dadku ay isugu yimaadeen maanta iyagoo doonaya in ay markaas iyagu ay arrintan ka dhabeeyaan ama ay xaqiijiyaan in arrintan ay wax ka jiraan marka dadku intooda badan way isku yimaadeen waa kuwaas bulshada Dhuusamareeb oo isugu jirta dhalinyaro haween iyo caruurba iyagoo doonaya in arrimahan qabuuraha la sheegayo qof nool inuu ku jiro muddo bil geeriyooday sida la sheegay iyaguna ay dadku intooda badan ee qof walba isleeyahay muslimiinta afka Soomaaliga ku hadla uu gaaro arrimahan la yaab kale ee deegaanka ka soo cusboonaaday muddo bil dhawaad agteed qof geeriyooday la yiri waa nool yahay haddana la rabo qabrigiisa in la qufo waa hagaag aad baad u mahadsantihiin
weli qabuurtii baanu joognaa bulshaduna qaarkood way imaanayaan qaarna way baxayaan qaarna waa ay soo galayaan iyagoo raxan u socda si ay u ogaadaan arrinta halkan ka taagan waana arrin la yaab leh oo dadka intiisa badan ay hadal hayaan bulshada Dhuusamareeb in qof mar hore geeriyooday la yiri waa nool yahay haddana la soo ogaado xaqiiqada aad baan u mahadsantihiin saaxiibayaal sida wanaagsan oo aad muddada yarta ah ee aan idiin sharaxay aad halkan uga daawanayseen live-ka aan soo galnay inagoo ku sugan mid ka mid ah qabuuraha Dhuusamareeb oo dadku ay maantaba ama barqadiiba ku waabariisteen in qof mar hore geeriyooday la yiri waa uu nool yahay aadaan u mahadsantihiin hal share gareeyo fiidiyogan inta arrintan ay hagaagaysana waxaan idin rajaynayaa qayr badan iyagoo dadku intooda badan ay hadal hayaan bulshada Dhuusamareeb in qof mar hore geeriyooday la leeyahay waa nool yahay haddana markaad weydiiso oo aad tiraado bal arrintan sidee ku suurtoobaysaa ay ku sheegayaan in mid ka mid ah dadka uu nool yahay واتهاي dadkii reer Dhuusamareeb ay isugu yimid wali qabriga aan joognaa bil koor bay gabadha dhimatay rabaa u naxariistay sida la sheegay walina dadku qaarkood waxa ay sheegeen in nin wadaad ah isugu yiri gabadha waa noosha sida iyagu hadalka u dhigeen wali qabuurtii baan joognaa waana arrin la yaab leh in qof bil ama laba bil agteed mootanaan la yiri waa nooshahay dadku inta badan waa ka dhaadhici laadahay bulshada reer Dhuusamareeb oo dhan ay isugu timisay u jeedaanba qabuuraha Dhuusamareeb baan joognaa dadku intooda badan aad bay u hadal hayaan arrintan la yaab kala Dhuusamareeb dadka jooga ay halkan qaarkood isugu yimaadeen iyagoo sheegaya in qabrigan faray ku godan tahay waa sida hadalka u dhigeen واتهاي dadkii reer Dhuusamareeb ay isugu yimid wali qabriga aan joognaa bil koor bay gabadha dhimatay rabaa u naxariistay sida la sheegay walina dadku qaarkood waxa ay sheegeen in nin wadaad ah isugu yiri gabadha waa noosha sida iyagu hadalka u dhigeen wali qabuurtii baan joognaa waana arrin la yaab leh in qof bil ama laba bil agteed mootanaan la yiri waa nooshahay dadku inta badan waa ka dhaadhici laadahay bulshada reer Dhuusamareeb oo dhan ay isugu timisay u jeedaanba qabuuraha Dhuusamareeb baan joognaa dadku intooda badan aad bay u hadal hayaan arrintan la yaab kala Dhuusamareeb dadka jooga ay halkan qaarkood isugu yimaadeen iyagoo sheegaya in qabrigan faray ku godan tahay waa sida hadalka u dhigeen dadkuna inta badan kama dhaadhacsiisna in qof bil mootana in haddana la yiraahdo waa nool yahay waa arrin la yaab leh waana arrin inta badan dadku ay isweydiinayaan oo ay sheegayaan arrintan arrin macquul ah aysan noqon karin balse waxaa la sheegay dadka qaarkood maraan la hadlay in la rabo in la jabiyo qabuuraha oo la ogaado marka waa arrin inta badan dadka ay intiisa badan hadal hayaan jooga halkan Dhuusamareeb baana qabuuro kamid ah qabuuraha ku yaala magaalada dadku intooda badan waa isku yimaadeen sa u jeedaanba dad badan ayaa yimid iyagoo markaasi doonaya in arrintan ay iyagu markaasi ay ogaadaan in arrin dhaba ay tahay sidoo kale arrin been abuur ay tahay dad badan baa yimid halkan anigu aan kamid ahay dadka qaarkood baabuur bay ku yimaadeen iyagoo doonaya inay ogaadaan arrintan inay xaqiijiyaan markaas raba inay iyagu arrimahan dadka ay hadal hayaan la sheegayo in qof dabcan geeriyooday mar hore la yiri waa uu nool yahay hal baaro qabrigii oo dadka qaarkood marka la sheekaysatay ay ku sheegayaan oo leeyihiin nin baa yiri wadaada gabadh baa nool marka aad bay dadku hadal hayaan waana arrin inta badan aanan la filan kareynin in maskaxda ibni aadamigu uu ka dhaadhaco marka
dadku way hadal hayaan dad badan baa yimid oo haween iyo rag isugu jira iyo waliba caruur iyagoo doonaya in ay ogaadaan xaqiiqada rasmiga halka ka jirto dadku de marka qaarkood markii dad tagaan kuwa kala soo buuxsamaya iyagoo markaasi arintan la yaabka ah marka la sheegayo in qof mar hore dhintay laba bil agteed ama bil ku dhawaad mootan ama geeriyooday la yiri waa uu nool yahay oo inta badan dadku ay qof walba uu isleeyahay bal arintan inay run tahay iyo inay been tahay soo ogow qabriga tag qofka dushiisa ah qabuurtaas idin muuqata midka ugu geeska xagga ayaa ku jira qofkii la sheegay ama ay dadku ay sheegayeen in arintaas ay la kulmeen oo nin sheekh oo baladkan degan oo imikaana reer magaciisa inaan la wadaago arintaas isaga ay ka soo baxday balse ay dadku isleeyihiin bal arintaas soo ogaada waa arin la yaab leh waana inta badan laga hadalhayo deegaanka gaar ahaan Dhuusamareeb iyagoo doonaya dadku inay ogaadaan arintan sida ay wax u jiraan iyo inay noqon karto mid dabcan wax ka jiraan marka dadku way imaanayaan qaarkood way laabanayaan haddana waa ay tagayaan marka clipkan kal hore mar hore la wadaagay haddana mid kale ayaan dabcan la wadaagay marka arinta la yaab kale ayaan jeclaystay in dadka aan la wadaago ee Dhuusamareeb lagu arkay qof muddo bil ah geeriyooday ee mootana haddana la yiri waa nool yahay waa arin la yaab leh aadaan u mahadsantihiin muuqaalkan share gareeya waa qabuuraha Dhuusamareeb oo arintaas la yaab kale dadku ay isugu yimaadeen maanta iyagoo doonaya in ay markaas iyagu ay arintan ka dhabeeyaan ama ay xaqiijiyaan in arintan ay wax ka jiraan marka dadku intooda badan way isku yimaadeen waa kuwaas bulshada Dhuusamareeb oo isugu jirta dhalinyaro haween iyo caruurba iyagoo doonaya in arimahan qabuuraha la sheegayo qof nool inuu ku jiro muddo bila geeriyooday sida la sheegay iyaguna ay dadku intooda badan ee qof walba isleeyahay muslimiinta afka Soomaaliga ku hadla uu gaaro arimahan la yaab kale ee deegaanka ka soo cusboonaaday muddo bil dhawaad agteed qof geeriyooday la yiri waa nool yahay haddana la rabo qabrigiisa in la qufo waa hagaag aad baan u mahadsantihiin wali qabuurtii baanu joognaa bulshaduna qaarkood way imaanayaan qaarna way baxayaan qaarna waa ay soo galayaan iyagoo raxan u socda si ay u ogaadaan arinta halkan ka taagan waana arin la yaab leh oo dadka intiisa badan ay hadal hayaan bulshada Dhuusamareeb in qof mar hore geeriyooday la yiri waa nool yahay haddana la soo ogaado xaqiiqada aad baan u mahadsantihiin saaxiibayaal sida wanaagsan oo aad muddada yarta ah ee aan idin sharaxay aad halkan uga daawanayseen live-kan soo galnay inagoo ku sugan mid ka mid ah qabuuraha Dhuusamareeb oo dadku ay maantaba ama barqadiiba ku waabariisteen in qof mar hore geeriyooday la yiri waa uu nool yahay aadaan u mahadsantihiin hal share gareeyo fiidiyogan inta arintan ay hagaagaysan waxaan idin rajaynayaa qayr badan iyagoo dadku intooda badan ay hadal hayaan bulshada Dhuusamareeb in qof mar hore geeriyooday la leeyahay waa nool yahay haddana markaad weydiiso oo aad tiraado bal arintan sidee ku suurtoobaysaa ay ku sheegayaan in mid ka mid ah dadka uu nool yahay واتهاي dadkii reer Dhuusamareeb ay isugu yimid wali qabriga aan joognaa bil koor bay gabadha dhimatay rabaa naxariistay sida la sheegay walina dadku qaarkood waxa ay sheegeen in nin wadaad ah isugu yiri gabadha waa noosha sidii ayagu ay hadalka u dhigeen wali qabuurtii baan joognaa waana arrin la yaab leh in qof bil ama laba bil agteed mootana la yiri waa nooshahay dadku inta badan waa ka dhaadhici laadahay bulshada reer Dhuusamareeb oo dhan ay isugu timisay u jeedaanba qabuuraha Dhuusamareeb baan joognaa dadku intooda badan aad bay u hadal hayaan arintan la yaab kala Dhuusamareeb dadka jooga ay halkan qaarkood isugu yimaadeen iyagoo sheegaya in qabrigan faray ku godan tahay waa sida hadalka u dhigeen dadkuna inta badan kama dhaadhacsiisna in qof bil mootana in haddana la yiraahdo waa nool yahay waa arrin la yaab leh waana arrin inta badan dadku ay isweydiinayaan oo ay sheegayaan arrintan arrin macquul ah aysan noqon karin balse
waxaa la sheegay dadka qaarkood maraan la hadlay in la rabo in la jabiyo qabuuraha oo la ogaado marka waa arrin inta badan dadka ay intiisa badan hadal hayaan jooga halkan Dhuusamareeb baana qabuuro kamid ah qabuuraha ku yaala magaalada dadku intooda badan waa isku yimaadeen saa u jeedaanba dad badan ayaa yimid iyagoo markaasi doonaya in arrintan ay iyagu markaasi ay ogaadaan in arrin dhab ay tahay sidoo kale arrin been abuur inay tahay dad badan baa yimid halkan anigu aan kamid ahay dadka qaarkood baabuur bay ku yimaadeen iyagoo doonaya inay ogaadaan arrintan inay xaqiijiyaan markaas raba inay iyagu arrimahan dadka ay hadal hayaan la sheegayo in qof dabcan geeriyooday mar hore la yiri waa uu nool yahay hal baaro qabrigii oo dadka qaarkood marka la sheekaysatay ku sheegayaan oo leeyihiin nin baa yiri wadaada gabadh baa nool marka aad bay dadku u hadal hayaan waana arrin inta badan aanan la filan kareynin in maskaxda ibni aadamigu uu ka dhaadhaco marka dadku way hadal hayaan dad badan baa yimid oo haween iyo rag isugu jira iyo waliba caruur iyagoo doonaya in ay ogaadaan xaqiiqada rasmiga halka ka jirto dadku marka qaarkood markii dad tagaanba kuwa kala soo buuxsamaya iyagoo markaasi arrintan la yaabka ah marka la sheegayo in qof mar hore dhintay laba bil agteed ama bil ku dhawaad mootan ama geeriyooday la yiri waa uu nool yahay oo inta badan dadku ay qof walba uu isleeyahay bal arrintan inay run tahay iyo inay been tahay soo ogow qabriga tag qofka dushiisa ah qabuurtaas idin muuqata midka ugu geeska xagga ayaa ku jira qofkii la sheegay ama ay dadku ay sheegayeen in arrintaas ay la kulmeen oo nin sheekh oo baladkan degan oo imikaana reer magaciisa inaan la wadaago arrintaas isagoo ay ka soo baxday balse ay dadku isleeyihiin bal arrintaas soo ogaada waa arrin la yaab leh waana inta badan laga hadalhayo deegaanka gaar ahaan Dhuusamareeb iyagoo doonaya dadku inay ogaadaan arrintan sida ay wax u jiraan iyo inay noqon karto mid dabcan wax ka jiraan marka dadku way imaanayaan qaarkood way laabanayaan haddana waa ay tagayaan marka clipkan kal hore mar hore aan la wadaagay haddana mid kale ayaan dabcan la wadaagay marka arrinta la yaab kale ayaan jeclaystay in dadka aan la wadaago Dhuusamareeb lagu arkay qof muddo bil ah geeriyooday mootana haddana la yiri waa nool yahay waa arrin la yaab leh aadana u mahadsantihiin muuqaalkan share gareeya waa qabuuraha Dhuusamareeb oo arrintaas la yaab kale dadku ay isugu yimaadeen maanta iyagoo doonaya in ay markaas iyagu ay arrintan ka dhabeeyaan ama ay xaqiijiyaan in arrintan ay wax ka jiraan marka dadku intooda badan way isku yimaadeen waa kuwaas bulshada Dhuusamareeb oo isugu jirta dhalinyaro haween iyo caruurba iyagoo doonaya in arrimahan qabuuraha la sheegayo qof nool inuu ku jiro muddo bila geeriyooday sida la sheegay iyaguna ay dadku intooda badan qof walba isleeyahay muslimiinta afka Soomaaliga ku hadla uu gaaro arrimahan la yaab kale ee deegaanka ka soo cusboonaaday muddo bil dhawaad agteed qof geeriyooday la yiri waa nool yahay haddana la rabo qabrigiisa in la qufo waa hagaag aad baan u mahadsantihiin weli qabuurtii baanu joognaa bulshaduna qaarkood way imaanayaan qaarna way baxayaan qaarna waa ay soo galayaan iyagoo raxan u socda si ay u ogaadaan arrinta halkan ka taagan waana arrin la yaab leh oo dadka intiisa badan ay hadal hayaan bulshada Dhuusamareeb in qof mar hore geeriyooday la yiri waa nool yahay haddana la soo ogaado xaqiiqada aad baan u mahadsantihiin saaxiibayaal sida wanaagsan oo aad muddada yarta ah ee aan idin sharaxay aad halkan uga daawanayseen live-ka aan soo galnay inagoo ku sugan mid ka mid ah qabuuraha Dhuusamareeb oo dadku ay maantaba ama barqadiiba ku waabariisteen in qof mar hore geeriyooday la yiri waa uu nool yahay aadaan u mahadsantihiin hal share gareeyo fiidiyogan inta arrintan ay hagaagaysana waxaan rajeynayaa qayr badan iyagoo dadku intooda badan ay hadal hayaan bulshada Dhuusamareeb in qof mar hore geeriyooday la leeyahay waa nool yahay haddana markaad weydiiso oo aad tiraado bal arrintan sidee ku suurtoobaysaa ay ku sheegayaan in mid ka mid ah dadka uu nool yahay
واتهاي dadkii reer dhuusamareebada isugu yimid wali qabrigayaan joognaa bil koor bay gabadha dhimatay rabaa u naxariistay sida la sheegay walina dadku qaarkood waxa ay sheegeen in nin wadaada isugu yiri gabadha waa noosha waa sidii ayagu ay hadalka u dhigeen wali qabuurtii baan joognaa waana arrin la yaab leh in qof bil ama laba bil agteed mootanaan la yiri waa nooshahay dadku inta badan waa ka dhaadhici laadahay bulshada reer dhuusamareebada oo dhan ay isugu timid u jeedaanba qabuuraha dhuusamareeb baan joognaa dadku intooda badan aad bay u hadal hayaan arrintan la yaab kala dhuusamareeb dadka jooga ay halkan qaarkood isugu yimaadeen iyagoo sheegaya in qabrigan faray ku godan tahay waa siday hadalka u dhigeen dadkuna inta badan kama dhaadhacsiisna in qof bil mootana in haddana la yiraahdo waa nool yahay waa arrin la yaab leh waana arrin inta badan dadku ay isweydiinayaan oo ay sheegayaan arrintan arrin macquul ah aysan noqon karin balse waxaa la sheegay dadka qaarkood maraan la hadlay in la rabo in la jabiyo qabuuraha oo la ogaado marka waa arrin inta badan dadka ay intiisa badan hadal hayaan jooga halkan dhuusamareeb baana qabuuro ka mid ah qabuuraha ku yaala magaalada dadku intooda badan waa isku yimaadeen saa u jeedaanba dad badan ayaa yimid iyagoo markaasi doonaya in arrintan ay iyagu markaasi ay ogaadaan in arrin dhaba ay tahay iyo sidoo kaleeto arrin been abuur inay tahay dad badan baa yimid halkan anigu aan ka mid ahay dadka qaarkood baabuur bay ku yimaadeen iyagoo doonaya inay ogaadaan arrintan inay xaqiijiyaan markaas raba inay iyagu arrimahan dadka ay hadal hayaan la sheegayo in qof dabcan geeriyooday mar hore la yiri waa uu nool yahay hal baaro qabrigii oo dadka qaarkood marka la sheekaysatay ay ku sheegayaan oo leeyihiin nin baa yiri wadaada gabadh baa nool marka aad bay dadku hadal hayaan waana arrin inta badan aanan la filan karaynin in maskaxda ibni aadamigu uu ka dhaadhaco marka dadku way hadal hayaan dad badan baa yimid oo haween iyo rag isugu jira iyo waliba caruur iyagoo doonaya in ay ogaadaan xaqiiqada rasmiga halka ka jirto dadku marka qaarkood markii dad tagaanba kuwa kala soo buuxsamaya iyagoo markaasi arrintan la yaabka ah marka la sheegayo in qof mar hore dhintay laba bil agteed ama bil ku dhawaad mootan ama geeriyooday la yiri waa uu nool yahay oo inta badan dadku ay qof walba uu isleeyahay bal arrintan inay run tahay iyo inay been tahay soo ogow qabriga tag qofka dushiisa ah qabuurtaas idin muuqata midka ugu geeska xagga ayaa ku jira qofkii la sheegay ama ay dadku ay sheegayeen in arrintaas ay la kulmeen oo nin sheekh oo baladkan degan oo imikaana reer magaciisa inaan la wadaago arrintaas isagoo ay ka soo baxday balse ay dadku isleeyihiin bal arrintaas soo ogaada waa arrin la yaab leh waana inta badan laga hadalhayo deegaanka gaar ahaan dhuusamareeb iyagoo doonaya dadku inay ogaadaan arrintan sida ay wax u jiraan iyo inay noqon karto mid dabcan wax ka jiraan marka dadku way imaanayaan qaarkood way laabanayaan haddana waa ay tagayaan marka clipkan kol hore mar hore la wadaagay haddana mid kale ayaan dabcan la wadaagay marka arrinta la yaab kale ayaan jeclaystay in dadka aan la wadaago dhuusamareeb lagu arkay qof muddo bil ah geeriyooday mootana haddana la yiri waa nool yahay waa arrin la yaab leh aadaan u mahadsantihiin muuqaalkan sheer gareeya waa qabuuraha dhuusamareeb oo arrintaas la yaab kale dadku ay isugu yimaadeen maanta iyagoo doonaya in ay markaas iyagu ay arrintan ka dhabeeyaan ama ay xaqiijiyaan in arrintan ay wax ka jiraan marka dadku intooda badan way isku yimaadeen waa kuwaasa bulshada dhuusamareeb oo isugu jirta dhalinyaro haween iyo caruurba iyagoo doonaya in arrimahan qabuuraha la sheegayo qof nool inuu ku jiro muddo bila geeriyooday sida la sheegay iyaguna ay dadku intooda badan ee qof walba isleeyahay muslimiinta ama afka Soomaaliga ku hadla uu gaaro arrimahan la yaab kale ee deegaanka ka soo cusboonaaday muddo bil dhawaad agteed qof geeriyooday la yiri waa nool yahay haddana la rabo qabrigiisa in la qufo waa hagaag aad baad u mahadsantihiin
weli qabuurtii baanu joognaa bulshaduna qaarkood way imaanayaan qaarna way baxayaan qaarna waa ay soo galayaan iyagoo raxan u socda si ay u ogaadaan arrinta halkan ka taagan waana arrin la yaab leh oo dadka intiisa badan ay hadal hayaan bulshada Dhuusamareeb in qof mar